kulan ballaaran oo habeenkii xalay ay isugu yimaadeen qaar ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanka gobolka Sanaag ayaa waxay kaga hadleen xaaladda nabadgelyo gobolka haatan ku sugan yahay iyo waliba arrimaha saami qaybsiga iyagoo dhinaca kalena baaq codheer u soo jeediyay labadii beelood ee walaalaha dhawaan shaqaqada ku dhex martay deegaanada Elephant waxaana ugu dambeyntii ay tacsi tiiraan yeelo direen qoyskii iyo qaraabadii iyo eheladii ay ka geeriyootay Allah u naxariistay hodan naaleeyo dhawaan ku geeriyootay qaraxii ka dhacay magaalada Kismaayo فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم إلهي سبحانه وتعالى مركو هذا اللي قفك لبض علاض الصاحي سادة دنك ولا سن كليس كمران إلهي سبحانه وتعالى وحكوت الماوي واحد مودس صاحب ده صاحبه هذا دنك ولا سن كمرتان ودنك ولا سن لقرع دولده حلنا دنك ولا سن دتك ورع نقطتي ما دام أنا يهوري ولا إلا إمك جوريسان أو إسكودية بدن أو هرول السمية وضد بدن أو حجر أو قوية هنا أو علماء أو رير سمان لنا السمين أنا ينتشهن بل إمك بيلها دكان دك ماذا عرقام أما جاره أما توتلهم بجوجل كسناج إن أي جوجل دجان وهرت تلولا فقرايو إحنا عم سنة هاي جوجل شاهد لا دجو سان رتش كل رتشونا لو جول يسن لها صو أفجرت أرنت تنعيل فين الدجلة وحنو تعسيدنا يا هذا عليه وآد قف قلوب أمة الصومالية وين أهيد وحنكلو تعسيدنا يا سيجيدي أو شافريد مركا والله بدو بهاين لبا قويهن oo khaasatan gobolka soo jeeda waxaan leenahay inta kala ku dhimatayna Ilaahay u naxariisto dhamaanteena samir iimaan naga siiyo waxaan u tacsiidanayaa hodan naalaye oo aad qof qulubta ummadda Soomaaliyeed ugu weyn ahayd waxaan kala u tacsiidanayaa saygeedii oo Jaafariid marka labaduba ahaayeen laba aqoonyahan oo khaasatan gobolka soo jeeda waxaan leenahay inta kala ku dhimatayna Ilaahay u naxariisto waxaan ugu dambeyntii warmurtiyada dhalinyaradaasi halkaasi ay ka soo saareen ayaa waxa halkaasi ka akhriyay aqoonyahan Saciid Cabdi Xasan waxaan baaq nabadeed u diraynaa beelaha ku dagaalamaya galbeedka magaalada Ceergaabo gaar ahaan degmada Elephant iyo agaarkeeda waxaan ugu baaqaynaa nabad inay joojiyaan dagaalka dheeraaday iyo colaadda aafisay waxaan ku adkaynaynaa inay qaataan nabad oo wax kasta oo dhexmari ku bedeshaan nabad anagoo ka duulayna mahmaadi Soomaaliyeed ee ahayd dagaal kuma dhasho wiilba ku dhinta waxaan kale oo ku borinaynaa una baaqaynaa beelaha kale ee gobolka dega aan colaadda ku lug lahayn una muuqan kara dhexdhexaad inay ka qayb qaataan xalinta colaadda dheeraatay ee 5 sano jirsatay oo ay u dhigaan gogol nabadeed labada beelood si dhabadan u dhexdhexaadiyaan una nabadeeyaan maadaama dawladda iyo dad badan oo isku dayay arintani ay ku guuldareysteen xalinteeda waxaan isleenahay waxa la joogaa markii beelaha kale ee reer Sanaag hawsha u guntan lahaayeen iyadoo laga duulayo guushii laga gaaray heshiiskii gobolka lagu nabadeeyay 1993 lambar 2 waxaan kale oo dhammaan dadka reer Ceergaabo xusuusinaynaa uguna baaqaynaa in la dhowro xasiloonida iyo amniga magaalada Ceergaabo rabshadihii ugu dambeeyay magaalada ka dhacay waxay saameyn ku yeesheen amniga magaalada waxay waxyeeleeyeen xarumo ganacsi iyo guryo iyo wixii la mid ah magaaladu waa xarunta gobolka Sanaag waana magaalo bulsho badan ka dhaxaysa cid walba oo reer Ceergaabo waxa waajib ka saaran yahay dhowrista xasiloonida iyo nabadda sida dhibta lagu unkay 27 sano ka hor inna lama aha in laga aqbalayo in rabshado iyo qalaasi magaalada laga bilaabo gidigeen waxa inoo dan ah Ceergaabo nabad ah barwaaqo ah horumarna xigsanaysa waxa kale oo laga maarmaara in maamulku xusnaado in cadaaladdu tahay dawada wax kasta oo la tabanayo xilliga adag ee dalku marayo amuuraha siyaasadeed ee si murgaya waxa sabab weyn u ah miisaanka dhinaca ka raran xilka dawladda gobolada iyo xataa degmooyinka waxaan ugu yeeraynaa dawladda inay beelaha wada dhistay maamulka wax xaqsoorto oo ay cadaalad u samayso hadii kale waxa dhab noqonaysa murtida Soomaaliyeed oo ahayd rag cadaalad waaya sidii cawsh kaliya xaalada daahir telefishinka caalamiga ah Cable TV magaalada Ceergaabo